maalinta maalmo ka mid ah usbuuca ilaahay loo soo bandhigaa dadka acmaashooda qof waloo mu'min aan ilaahay u shariik yeelin dembigiisa la dhaafaa laba mooyaane waa labadee waa labadii isa sudhnaa ee is haystay labadaa waxaa la yidhaahdaa andiru haadayni xataa yastalixa labadan arrinkooda dib iga dhiga baa ilaahay yidhaha intay ka heshiinayaan arrinkooda dib u dhiga waxaa ka mid ah مثلا النبي عليه الصلاة والسلام وحتى المامي صدح صلاة دودا لما أقبله أضون كسيد كيسي كبح صدي قلت كان يا لكن صلاة دي صلاة أقبل معي هوين دا ساحتي يدو نكيدو عريسي قردر يدو أي قردر انتهي صلاة دي الله أقبل معي إمام كدتك التوكية يقصبك كتوكينا يبانا يوقلين hadduu dadka iska jujuubto masaajidka intuu qabsado oo imaamnimada qaato oo iska galo dadkuna aanay rabin salaadiisu maqbuul maaha ay imaamnimo baa la mid ah culimadu yiraahdaan ta madaxnimada ta wax kasta bini aadamku waxa uu wada leeyahay lama jujuubo waa inay ku ogolaadeen oo sidaasi ku tagtay idan aqbalaad aynu leenahay acmaasha waa la aqbalaa ama aynu leenahay tafaawut al-a'maal acmaashu waa kala koraysa waa kala badan tahay marna waxaynu ka warramaynaa camalku shuruudi iyo wixii laga rabay baanu laba imanin oo siisu u buraya la yaqbal Allahu salaat bighayri tuhur wala sadaqa min ghulul sala nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam xadiidka muslim ilaahay ma aqbalo salaada wayse lagu tukan hadaa tiraa waa iska tukanaya taasi aslu shariica bay khilaafsanta